الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الأحبة، waxaynu ku jirnaa tobankii dambe, habeenkii u horeeyay waa tagay. waxa soo haray Allah waa 8 9na way noqon kartaa. nabigeena sallallahu alayhi wa sallam tobanka dambe hadday soo galaan dadaal dheeraad u bixin jiray, dadaal ka badan kii sanadkii uu dadaalayay, dadaal ka badan kii 20 ka hore bisha uu dadaalayay. wixii dunida la tabci waayay 12 bilood iyo 20 bari 10 bari lagu tabci maayo. nin ku taajiri waayay 12 bilood iyo 20 barina 10 bari ku taajiri maayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii dunida aynu tabcaynay 12 bilood iyo wax dheeraada 10 bari wuxuu inaga doonayaa aakhare inaan tabcano. aakhare waa lagu taajiri karaa 10 bari. dembiga dhaaf baa lagu helaa, naar baa la isaga xoreeyaa. naartu qofka muslimka ah dembi baa gelin kara. dembigiiba haddii taacada iyo dadaalka lagaaga dhaafo wax naar ku geliyaba ma jiro. kadib baa naarta laga xoreynaya. habeen walba ilaahay dad buu naarta ka xoreeyaa dembigay galeen ay ku waajibtay naar inay ku galaan, ku mutay dembigay galeen. intii hore soo marnay inaan fursadda helay war uma hayno. waxaa dadaalka keenaya waxaa ka mid ah in naar la ilaga xoreeyo war uma hayno. haddayba dhacday jaaniska in ilaahay ku siiyey intii ka dambeysay laga xoreeyay kadib inaan galay dembi kaloo naar lagu mutay inaan galayna war looma hayo. maalmo go-an weeye, wakti kooban baa dhiman. nabigeena haddii rabbi ila yidhi ku dayda sala allahu alayh wa sallam, nabigeena waxaa laynooga soo guuriyey si guud 10kan uu ugu dadaal badnaan jiray sanadka dhan. 10kan wuxuu dadaali jiray habeenadooda dadaal ka badan sanadka dhan iyo soonka intiisii hore oo dhan inta uu dadaalayay. ilaahayna wuxuu ina faray inay nabiga ku dayano calayhi salaatu wasalaam, uu ku daydo qof kastoo ilaahay aakhara darajo ka rajaynaya, ilaahayna si wanaagsan dikrigiisa inuu xuso doonaya. dariiqa nabi maxamed baa sala allahu alayh wasalam ka ilaahayna darajo lagaga gaaro. dikriga ilaahay saxan iyo xasuusta ilaahay wanaagsanna lagu garto waa isaga in lagu daydo, dadaalkiisiina la hiigsado. dabcan ma gaari karno. isaga ilaahay wax walba waa u dhaafay. darajada jannada ugu sarraysa isagaa la siiyey. uunka ilaahayna isagaa fadliga koobaad ee ugu badan la siiyey. ambiyadiina sayidurusul baa laga dhigay. intaa isagoo darajo la siiyey oo isaga sideena dembi uu ka cabsanayaaba aanu meesha oolin ayuu dadaali jiray. marka qaarkood salaada suu dheeraynayo tukanayo, nabigu salaadiisu ma ragcada badnaan jirin, laakiin way taagni dheeraan jirtay. baa lagu hintay bararaan bay mararka qaarkood dilaaci jireen. markaasaa la dhihi jiray ilaahay baa wax walba kuu dhaafaye sidan ma isu dhammaa u dhaantid naftoo intaa uga turtid. wuxuu tilmaami jiray nabigu mar kastoo nicmada ilaahay kugu badato shukriga lagaa rabaa sii badanaya. markay nicmadu yaraatana shukriga lagaa rabaa hoos u yaraanaya. markay nicmadu badatana shukriga lagaa rabaa badanaya. haddii nicmada ugu badan la siiyey oo darajada ugu sarraysa la geeyey, shukriga ugu badan baa laga rabaa. falaa yakunu cabdan shakuura. innaga nicam badan baan haysanaa, in badan baa ilaahayna siiyey, laakiin shukrigeedii waxaan ka haynaa iska yar. macaano daatay waa la daba qabtaa. maalmahan dhiman, habeenadan ramadaanka ka dhiman, wax badan baynu kasban karnaa, khayr badan baynu geysan karnaa. nabigeena alay slam 3 arrimood baa lagu tilmaamay inuu samayn jiray 10ka dambe markay soo galaan. midda koobaad axyaa laylahu, habeenka waa nooleyn jiray. nooleynta habeenku waa inaad ku camirto dikriga ilaahi iyo taacadiisa iyo wax kaalmo iyo kaabiyaal u ah. dikrigu salaad buu noqon karaa, qur-aan la akhriyuu noqon karaa, duca ilaahay la baryuu noqon karaa, dikri iyo tasbiix la akhriyuu noqon karaa, qof wax loo sheego la faa'iideeyuu noqon karaa, qof wax loo taray buu noqon karaa. habeenka nooleynteedu wax kasta oo taaca iyo cibaado ilaahay buu noqon karaa. masaajidkaa lagu nooleyn karaa, gurigana waa lagu nooleyn karaa. gurigaagaad tegi kartaa, gurigaagaad ku tukan kartaa, gurigaagaad qur-aan ku akhrisan kartaa, gurigaagaad ku ducaysan kartaa. habeenku in dikri iyo taacada ilaahay xasuustiisa lagu nooleeyo tooska ah ama wixii kaalmo u ah
waxa kaalmadu ee dikriga ajirka la isaga qorayo waxaa ka mid a qofku marka uu daalo inuu weyse aado saf baad gashay weysaad gashay caday baad soo cadayatay fii dikrillaahi qof ku jiraad la mid tahay qofkii wuxuu u baahday saxuur cashuu u baahday wuxuu u cashaynayaa inuu isu diyaariyo wuxuu u saxuuranayaa inuu sooma ducaysto iyadana daacada ilaahay wixii kaalmeynayay bay ka mid tahay hadday dhacday inuu aada u daalo oo waxoogay iskala bixiyo oo uu jimicsanayo isagoon dad dhibaynin si uu u kaalmaysto daacada ilaahay oo waxoogay jirka u kala baxay min aaacati lagu camirayay ka mid tahay saas darteed habeenkii in dikri ilaahay lagu nooleeyaa la rabaa inaadan warar daba socodkood iyo facebook iyo social media gelistood iyo maxaa wararka lasoo sheegay websayda daba wareegood iyo telefishinna daawashadood iyo filimaan eegashadood iyo fadhi ku dirin inaadan ku dhumin baa la doonayaa intay kuwa kaaga dhumi lahaayeen iska seexa aqalla shay dembi la-aan baad noqon markaa iska seexato hurdadu dembi ma aha laakiin waxaa haddaad ku soo jeedo habeenkiina cibaado kumaadan noolayn inta badanna dembi kamaadan magangelin nabadgelin wax dembi unbaa ku soo mari shaydaanka yaryarkaana janisun buu kaa heli marka habeenka nabigu dikri iyo aacada ilaahay iyo wixii la falgaluu ku nooleyn jiray sala allahu alayh alih wasalam waxa labaad ee nabigeenu samayn jiray waxay ahayd dadkiisana waa toosin jiray reeruhu toosin jiray ciddii uu mas-uul ka yahay ee isaga meesha kula nool buu toosin jiray xaasaskiisa keliya ma ahayn dadka nabiga la noola sal slam xaasasku qaar baa caruur lahaa umu salama oo kale caruur bay lahayd allahu naxay radi allahu canhu ardaahu busalaam ay u dhashay nabiga gurigiisay ku noolaayeen ahalkiisi iyo reerkiisay ka mid ahaayeen markii reerka la toosinayo qayb bay ka ahaayeen ciddaad mas-uulka ka tahay cidda kugu hoos nool ciddaad taladooda iyo dantooda hayso dantoodiibay ka mid tahay inay habeenka nooleeyaan inay ilaahay baryaan in ilmaha la kiciyo in reeraha la toosiyo in la yihahdo ka kaca waxaa ka habboon inaad ilmihii iyo reerkii oo jiif iskaga soo tagto ama intaad fiidkiiba meelahan wareegto ood makhaayadaha qaxwo iyo kafee kaga dhufato masaajidka iska soo gasho iyagana iska hurdaan waxaa kaaga ajir badan inaad guriga ku cibaadaysato ood qur-aan ku akrisato oo waxoogay markaad joogto ka kaca a dhahda iyagii toosa ciyaalkii caruurtu masaajidka waxaa loo keenaa inay masaajidka beytka ilaahay yaho iyaga looga baahan yahay in la qabsadaan iyagoo yaryar waxay u soomaan soonka cibaado inay la qabsadaan tanna waxaa la rabaa inaad saqdhaxa soo kiciso inay ducaystaan ilaahay barya inaad dhahdo qur-aan akhrista inaad tahdaado dikri akhri inaad dhahdo haddii qaarkood daalaan inaad tidhahda ducadii iyo allabariga waynu aaminsan waana wareejis hebel baa hadda ku qoran adiga ducee heblaha ku xigta adiga ducee markaad caawa tidhaahdo berri mid waliba wuxuu soo xifdin doonaa ducadu akrin lahaa ducadu maalintii wax kaloo uu ku mashquulsanaan lahaana ducooyin inuu soo xifdiyaan u dir habeenkiina marka aad la joogtay daalaan marba mid ha duceeyo hadhow kii duco fiicnaada waa la arki doonaa dheh tartankoodaasi hurdaduna way ku duushaa dikriga iyo ducadana way ku soo xifdiyaan wayna kala mustaqbalkana way la qabsadaan xilliga ilaahay in loo kaco ilaahay in la baryo ilaahay in loo soo laabto inay xilligii fadliga badnay tahay ciddii keeni kartana haddaad masaajidba imanayso ciyaalka keen intaan dadka dhibaynin ama adugu aad xakamayn kartaad hayn karayso haddii ciyaalku qaylqaylyaanna ha loo dulqaato ayqada ahla hudaa bay ka mid tahayoo masaajidka dadka xaqa kuleh imanaya bay ubadka iyo ilmuhu ka mid yihiin marka nabigu ayqada ahlah innaga waxaad arkaysaa ninka odayga masaajidku iska aadaya tahajud baan aday buu leeyahay xaafadii yaa toosay iyo yaa hurda iyo yaa tukaday iyo yaa soo ilaahay baryay dantiisa iyo shaqadiisa maaha xilba kama saaraba arrintaasi sax maaha waxaa layna baray nabigeena calayh isalaatu wasalaam qofka reeraha toosinayaay masaajidka keliya kuma cibaadaysan jirin marna masaajidku ku ictikaafi jiray mararna gurigiisuu joogi jirayo dadku nabigu markuu masaajidka joogo meel buu xiran jiray markuu fadhiya wuxuu samaynayo lama ogaan jirin ma ducaysanaya ma qur-aan buu akrinaya ma adkaar kaleu akrinaya inta badan lama ogaan jirin markuu istaagay salaaduu istaagay mararka qaarkood madaxiisiiya la arki jiray oo lagu daba tukan jiray wailaa markaa uu fadhiyaay meeshaasaa u xirnaan jirtay nabiga alay salaam wuxuu samaynayo dikriga ilaahay buu kusoo jeedi jiray sala allahu alayh alih wasalam saas darteed ayqada ahlah dadka iyo reerka iyo aan gaarsiino caruurta hala toosiyo hooyadu ninkeeda ha toosiso
ninkuna xaaskiisa ha toosiyo carruurtooda ha toosiyaan dadka la nool ee qaraabada ha toosiyaan dikriga iyo khayrka ha la isu kaalmayso tacaawanu cala albiri wattaqwa way waxa saddexaad ee nabigu samiij alayhi salaam waxaa lagu tilmaamay shadda al-izara guntigu adkaysan jiray waxbaa la guntan jiray sida saraawiil suun qabta ama wada laastiga lama qaadan jirin laba go' baa la xiran jiray guntiga waa la adkaystay Soomaalidu guntigu dhiisha isaga dhigay bay yiraahdaan guntiga la adkaystay laba macnaba waa looga jeeday qof guntiga adkaystay waa qof hawl adag u diyaar garoobay shaqo adag inaad qabato markaad rabto wax adagna qaado hawl adagna qabataay horta iisug baad leedahay guntiga aan adkaystay sideenna shaatiga aan u laalaabano markaan wax adag qaadayno hadduu sarwaalku ka dheeriyahay inaad u soo laalaabato oo lugaha isu daba dhigto tiraahdo haye diyaar baan ahay qof diyaar garoobay baa tahay nabigu calaihis salaatu wasalaam inuu habeenkii nooleeyo hawl adag galo soo jeedo dadka toosiyo khayr badan ku mashquulo buu u diyaar garoobi jiray waa kow hawl adag buu u diyaar garoobay dhinaca kale aayad shida miisaro xadiidku wuxuu tilmaamayaa la socotaay waxaan loo baahnayn oo laga maarmi karo oo noloshiiyo macmacaansigeeda badan ah iyagana meel buu iska dhigi jiray hadday habeen iyo gogol iyo haween tahay hadday hadal iyo haasaawo badan oo banaanka la haasaawo tahay nabigu waa iska fogeyn jiray sallallahu alayhi wasallam waxbuu si adag ugu diyaar garoobi jiray wixii buuna ku mashquuli jiray marna waa itikaaf jiray sallallahu alayhi wasallam marka amal adag oo habeen la nooleeyaa oo dhikri iyo taaca lagu nooleeyaa oo wixii lagu mashquuli jiray nolosha qaybaheedii kaliya iska raaxaysigeedii buu meel isaga soo xili jiray waa nabigu sallallahu alayhi wasallam tay markii aad masaajid timaado waa la soo itikaafa qof soo itikaafay gurigiisa markuu joogo nalku iska damin jiray markuu seexan jaro xisanayo meel iftiina kuma seexan jirin masaajidka laakiin cidi nalku damin mayso nalku waa inuu shidnaadaa nafta waa inaad adayga bartaa haddayba hurdo ka maarmi weydo nalka inay ku seexataa iyadoo la sheekeynaya waa inay seexataa dadku ma aday ku wada seexan dadku hadday wax akhrisan lahayn nalka ma aday ku wada damin haddaad rabto nalka waxaa la rabaa naftu waa wixii la baro haddaad barta maanta ay diido berri nalkoo shidan bay seexan dadkoo sheekeynayana way seexan haddaad rabto yar nasa dhahdo haddaad wax akhriso dhahdo dad badan baa wax akhrisanaya qaar baa wuxuu leeyahay markaan wax akhrisanayo ducaysanayo nuunuu inaan maqlo ma rabo gurigaaga tag gurigaaga haddaad rabtana markaad tukanaysa nalka danso markaad soo seexanaysana shido haddaad rabto markaad quraan akhrisanaysa shido haddaad xifdisan tahayna iska wadami haddaad rabto inaad ducaysato oo nuunuu maqal gurigaaga aad masaajidkan muslimku wada yimid waxaad u baahan tahay naftaada inay xamisho wax badan oo culays iyo dhib u aragto wax badan oo naftu ay jeceshahayna aad ka xakamayso haddaad soo itikaaftayna hawl adag baad u diyaar garowday noloshii shaqooyinkii xoolihii guryihii qaraabadii baad xadhigga u soo jartay maxaad soo raadisay inaan cibaado iyo dikri iyo taacad tobankaa beri u go-oon ka faa'iidaysta usoo go-aansatay go-aanka adagaad qaadatay suu yahay uu ku dhaqan laakiin waan soo itikaafay barnaamijka baakinka masaajidka ee xariimulmasjidka la yidhaahdo baan maanta o dhan taagnaan oon sheekayn barxada raxabatulmasjid la yidhaahdo oo la isku haysto masaajidka ka mid miyaa mise ma aha baan maanta oo dhan sheekayn xafiisyadaan maanta oo dhan wareegi telefishinadaan maanta oo dhan fiirin waxoogay markaan joogaba waxoogay waan yar cajise kafe iyo kabashiinaan doonani waxa isma qabanayso saad go-aanka adag u qaadatay u fuli adaa go-aan adag qaatay adaa hawl adag u diyaar garoobay naftan aad rabtay farabaxan noqotay inaad si fiican u xakamayso weli way ku sidataa intay samaynayso hadday kolba ku saarto kolba ku bixisa qasab ahayn waxaan loo baahnayn waxaan daruuro ahayn kolba hadday ku saarto kolba kusoo jiirayso kolbay muran ay kusoo geliso naftani weli wixii aad rabtay inaad ka soo reebtood ka adkaatood xakamayso weli farahaaga way ka baxsan tahay weli gacanta ma inay soo gelin halkii inaad fariisaa la rabaa meesha aad maya maxaa usoo itikaafta xagga aan soo yar jiraya maya ma qasabba wixii daruure een laga maarmin maahane waxa kale inaad si fiican dhuunta u qabato waa maalinkiiya labada hore marka dambe mustaqiimkay qabsan si fiican bay jidka u qabsan waa sidii la yidhi wanafsu kaطifli in tuhmilhu shaba calaa xubi ridaaci wain taftimhu yanfatimi dadka muctakafiinta galabta casarkii baa laha si kale uga hadli doona axkaamtee siday go-aanka u qaateen go-aanka ha u fuliyaan
say nafta u soo qasbeen qoortaha uga taagnaadaan waxaan lagu qasbarayna banaana wareegi iyo albaaba ka baxa ka ilaaliyaan si ay natiijadii iyo mirihii i'tikaafka laga rabay habeenkiina laga faa'iideysto maalintiina taaca lagu mashquulay u sameeyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam shadda mizarahu marka waxa naftu jeceshahay ee ka badbadiska ee hareera daadaadiska noloshoo dhan buu xargaha u jeeri jiray sallallahu alayhi wasallam markaasuu cibaadada si fiican ugu wada guuri jiray hadhiina waan ka mashquul badnahay nabigu firaaqo badan buu haystay madiina iska baadiye yahay dad yar baa ku noolaa waadu mudad rasuul nabiga sallallahu alayhi wasallam hadii hoggaan madax iyo muslimiin la yiraahdana isaga mas'uuliyadu saaray hadday hoggaan dacwo iyo diin la yiraahdana isaga ay saaray hadday dadka baahan tahayna isagay ku soo hiranayeen kii su'aal qabay isagu ku soo hiranayay xaasas buu lahaa caruuru jecel yahay buu lahaa minta ka badan baad leedahay intaas mas'uuliyad adiga ma ku saaran tahay hadduu nabigu calayhi salaam cibaadadii inuu nooleeyo iyo i'tikaaf u go'ay adiguna aad u soo gooday dee shirkadaha masaajidka ka dhex maamuli kuba halka kor i'tikaafaya manto dhan telefoon buu ku hadlayaa ha wiilasha saa u dira ha xafiiska saa u xira ha gaadiidka sidaa dhaha ha shaqaalaha sidaa dhaha adar waxa xafiiskaaga tan muslimkeena waa dhintay cibaadada kuwa mashquulsan aduu shaqadii baad ku jirtaa waxa dheerun dhib ah laga tukan waa laga ducaysan waa wax laga akhrisan waa laga qayluushan waa telefoonkaaga masaajidkii baad xafiis ka dhigatay saak ma soo i'tikaafaysan u soo go'a cibaadada oo si rasmi ah u soo talagala ilaahay khayraadka dadka allahna waafajiyo amalka ijtihaadkan allah naga aqbalo ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwii loo dambi dhaafo naarna lagaga xoreeyo allah nagu daro kuwa leelatul qadriga la waafajiyana allah nagu daro sallallahu subhanaka allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ات نفوسنا تقواها اللهم زكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها واقم الصلاه